saaka aroornimadii hore soo annagoo dadka intiisa noqday salaad ku karaysa ama hurido baa soo weeraray ciidan baa soo weeraray technical wata baabuur kale intaan hubo 3 tireen ay si gudbo baabuur technical ah iyo gawaari kale taan soo weeraray marka salaada tukaday ka bacdi ayaan rasaasta ku warhelay iyo sidan iyo maarta qoryo waaweyn nala dhacay khasaare maxaa halka ka dhacay khasaare aad iyo aad u ballaaran baa dhacay guryo adiga ilaa 20 iyo 1 guri ah dhulka lala sinay waxana guri alaab iyo qalab walaana guraha ku jiray waa la guday waxana waa la bilaqay waa la qaatay raashinkii iyo qalabkii kale iyo wixii alaabaha waa laga qaatay wixii kale oo la qaadi waayay dab baa la saaray waa la guday guryaheena gawaariga wadada gaari waa wadada laga qabsaday oo gaarigaas lagu burburiyay anaga gaari oo waa la guday isaga maartay rasaas baa la dhacay taabiyaash iyo waxa laga dhigay dumar iyo ciyaal iyo waxay joogeen ma ahay cid laba nin baa ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto labada nin baa wax beeriya ku dhacay oo madaxa kale oo idin soo weeraray maxaa ka dhintay maxaa ka dhaawacmay hadda qofku markii weerar dhaco runta in laga hadlaa fiican qofka dhibku ku dhacay ama laga awood roonaa waxba ma sheegi karo anaguna waa laga ka awood roonaa ciidan laga tiro badan buu ahaa oo ilaa boqoleeyo gaaraya 7 nin baan ahay waxaan ahay 8 nin laba waa dhimatay oo meesha ku dhimatay 6 kale soo ayaa badbaaday iyo dumarkii iyo ciyaalkii oo waliba adigu waa ka mid tahay anigu waan ka mid ahay yaa idin soo weeraray marka ciidan baan soo weeraray baadii maxay yihiin ciidanku waran ciidanku waa ciidan qabiil oo macnaha wax gardarro ah oo aan maartay biraadam saada ilaahay wuxuu isku salladay waa qurun ilaahay ku lagu salladay oo gaaray dawladna ma ahayn jabhad kale sana ma ahayn laakiin waxa ahayn qabiil maxaad ku cadeynaysaa inay ciidan qabiil ahaayeen hadda ciidanka qabiil awil bay dhowr jeer hanjabaadaha hore iyo weerar ka horreeyay oo ay shafaaf lagu soo weerareen oo ka horreeyay iyo marar badan oo aynu soo weerareen xagga afka dagaal ay nagula weerareen oo xagga afka inta uu jirtay iyo waa iska jireen wax iska cad weeyaan hadda iminka meesha baa ku sugan tahay xaalku waa sidee goobtii baan ku sugnahay meydadkii baa la aasaya oo hadda qabrahoodii la qodaya insha Allah waxa weeye anaga waan joognaa iyo ummad kale ilaahay soo khalqay marka waxa weeyaan waan ku sugnahay meesha ku sugnahay guriyihii iyo dhamaantoodna way burburay waxa allaale wax yaala male oo wixii hanti aydo oo leeyna waa la gubay wax gaadiida oo hadda maartay gaari hal gaari oo la shaqada gaariga waa duqaysiye rasaasta gudaha looga dhusay marka sidaas wax gurmada ma ka hesheen dawladda oo xubno dawladda kamid ma yimaadeen maamulka Puntland maya xagga maamulka Puntland anagu wax gurmada oo ay hadda noo keeneen oo dagaalka ayaa mar kale ka qarxay subaxnimadii hore saaka duuladka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool kadib dagaal 3 geesood ah oo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland oo 5 bilood u dambeeyay isku warfadhiyay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool xaaladda ayaa ilaa imika qasan waxaana jira khasaare nafeed oo labada dhinacba walow aan la xaqiijin inta uu leeyahay balse wararka ayaa sheegaya in dagaalku yahay mid xoogan ciidamada maamulka Puntland ayaa iyagu ku hawlan sidii ay loo wareegi lahaayeen gacan ku haynta magaalada Tukaraq halka ciidamada Somaliland ay xijisanayaan difaaca magaaladaasi isku dayo aan la sameeyay dadka ku sugan deegaankaasi ayaa noo suura galin xaaladda dagaal awgeed wixii wareeg ka soo kordha kala soco Holhol TV la saanood kuche wala kuche bebega wala qabsaday bebega wala susurno wala qabsaday